arinta ka dambaysa in Xasan Toob YouTube-kiisa Durdur Media habadeen laga saaro dhabaantii hadaynu nahay bahda barbaarta media falkaasi lagula dhaqaaqay Xasan Toob aad baan ugu xunnahay in markaasi wajigaba xaasi uu la kulmo maadaama YouTube-kaas uu ka galay jawdi fara badan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي بقالي سو دوادا هذا الجنال كي كل عصب هاي سبسكرايب لايك لي كومنت شير انت بوا يدير قلن أصحابتي ذا قيمة يقدر انت إقايا يغمضن انت هوري إيري شوكتي آدي أمهسيهين انت أقول عصب وهذا يقول صابيرتنا وحايد الله سو دوادا ما شاء الله تبارك الله أصحابتي ذا عمفرك سو دوادا يليس أفيا أصحابتي ذا قروح بضلي channel هي سبسكرايب لايك كومنت شير انت بوا حقينا كده ذا لهدو إلى كرالي نقضو maanta maalmaha kale way ka duwan tahay wayna ka xanuun badan tahay wayna ka xamaasad badan tahay waxay tahay maanta war faahfaahin ama dheeraad ama social media si saaid la soo dhaxmarayo baan jeclaaday in aan la wadaago wiilkii walaalkeena ahaa Xasan Toob firisti waxaan dhihi lahay waxaan maqlay saako morning marka aan soo tooso YouTube-ka aan galay waxaan arkay in Durdur Media hawada lagu cunay aad baan uga xumahay waxa waaye waxa dhibka keenayana waxay tahay qof walba marka aad soo xaraysato biri dhib bay ku keenaysaa marka adduunyadana waxa la dhahay si doonto ay naqato ama si doonto ay ahaataba markii social media lagu wada jiro dadka aad saaxiibada ama aad garabka aad ka dhiganaysid waxa loo baahan yahay dad aad adiga hubto ama aad okiidsan tahay ama ayna dhabarka ka tooganaynin maanta waxa socialka sida badan aan ka arkay in lagu cambaareynayo in dadkii oo gurigiisa la joogay ee ka jabsadeen channelka Durdur Media aad iyo aad aan uga xumahay waana ka xumahay dadka jeclaaday waxaan aad iyo aad uga xumahay macnaha wiilka walaalkeena qof walba soo dhaweystay marka aad qof xun iyo qof sanna aad soo dhaweysato biri dhib bay ku lahaanaysaa maanta dhibkii uu taagan yahay wiilkii Xasan Toob ahay dadaal fara badan wuu sameeyay dad badan wuu soo caan bixiyay dad badan wax waa u qabtay dad badan madaxiisa wax bay ku cuneen asigana wax buu ku cunyay marka waxaan dhihi lahay horta aad iyo aad aan uga xumahay waxaan intuu soo fadhiistay inuu channelkiisa uu dib u soo naqsado haduu ilaa ka raali naqdo waayo cadowgiisa manihin macnaha marka aad qofka markuu wax xun iyo wax san soo dhigaba aad la wadaagaysid in aad xaasid tahay ma aha maxas xun oo soo dhiga waxa markii aad soo qaadanaysid waxay tahay in uu noqoto tusaalo oo ka tanaasulo marka tan taagan maanta waxay tahay maanta channelkiisa hawada lagu cunay horta waxa qalad ah qof maanta miskiin ah oo familkiisa qoysaskiisa eheladiisa asxaabtiisa meel uu wax badan oo uga helay maanta noloshiisa uu ku kaafinayay dad badanna ay ku tiirsanayeen oo qutuliyoonkooda iyo biriiskooda ay ka dhacsanayeen meesha haddii meeshii qof intee u soo ambabaxday ku adkaysatay in ay janaalkan jabsato ama ay waxyeelo u geysato wala horta waa arrin aad iyo aad u xun qof aad soo dhaweysatana marka uu dhabarka ka toogto way xanuun badan tahay iyadana waa arrin ka sii daran isdhihi karo maanta walaalkaasi hawada laga saaray sidee wax u dhaceen maxaa sababay in sheekadan ay imaado in YouTube-ka Xasan Toob qadka laga saaro iyadoo hore markaa loo ogaa Xasan Toob in dad badan markaas YouTube-kiisa ka soo shaqeynay ka tageen kadibna arimahaasi uu san la kulmi jiray laakiin haatan arintii ay noqotay mid markaas cirka isku sii shareerta Xasan Toob waxa bishii la soo dhaafay in November ka tagay Awees Ali Baafo oo markiina Xasan Toob dib weyn baa qabsaday waa meel ka bariisaysanaysa shaqadaada ay ahayd markii laga qaato ama laga jabsado ama laga farsamaysto sida ay naqataba xanuun saaid baa dareemaysa xanuunkaas oo maxay kula naqan kartaa waayo hadda fikir iyo murug iyo dhibaato fara badan baa haysatay yaa ku jabsaday yaa ku qaatay yaa ku yeelay waa dadka adiga soo dhaweysatay waa dadka adiga wax u qabanaysa waa dadka adiga maanta
dhehaysa qashin walba ama qof walba markaad soo dhawaysato qof xun iyo qof san qof xaasida iyo qof xaasid aan ahayn biri dhibaatada kaaga imaan karto waa tan oo kale bal maanta meeshii uu ka shaqaysanaya shaqo camal kale muuna lahayn bariiskiisa buu ka dhacsanaya awlaadiisa buu ka biilanaya ehelkiisa buu wax ka siisanaya asxaabtiisa buu markuu qofka meeshaan wax badan uu ka helayay wax badan uu ka macaashayay wax badan uu ka faa'iidayay markii biri lagaa hor istaago ama meeshii ay isbedesho ciil badan baa dareemaysaa iyo xanaaq fara badan dadka social mediana dad xaasidiin baa ku jiro aan is dhihi karo oo Soomaalidana ma ku sii jirto qofka horumar gaarto ma la jeclo luqba baf laga siin dib baa loo dhigay marka waxa waaye Soomaalidana inta maanta qof markay horumar gaarto aan ku farxi lahayn anaga is xasideyna anaga hoos isku dhigayna anaga is liidayna anaga jecel in aan islu goyno ama aan qoftii horumarka gaarta aan hoos u dhigno waa ku takhasusna bataa takhasuskeeda waa haysanaaba waa waxay taa maanta qofkii maanta ma arkaysid qof viewgeedii milyan maraay ama milyamaad ma arkaysid subscribe-keeda milyan maraay kan ugu caansan YouTube xaqiiqatan ma maraayo waa waxay tahay maanta xaqiiqda taagan waxay tahay qof markay horumar gaarto anaga ma jecel laakiin waa tahtan hadda durdur media haysato waxay tahay dad xaasid ah baa dib u dhigay dad xaasid baa jabsada channelkooda dad xaasid baa hawada ku cunay aniga waan sadaqi waysaa macaadala YouTube-kii aan raadishay aan ku qoray si walba aan yeelano waaba hawadiyaaba lagu cunaabo waxa hawada lagu cunaa xagee ka soo bixaysa ama soo bixayso lagama yaabo inay soo baxdo marka dambeeyay durdur media markaasi joogay lana hubo inuu ahaa nin markaasi shacbiyad badan lahaa nidaamiye wuxuu ahaa fanaan sidoo kale wuxuu ahaa wariye oo intoo markaas isku wata iyo xirfadiisu kula shaqeynayay oo ahaa nin aad u degan Cabdiqaadir nidaamiye hadaba waxa dhacday in YouTube-kii xalay Xasan Toob wuxuu soo galay muuqaaladii in uu si official ah oo rasmi u xaqiijiyay inay ka tageen nidaamiye iyo sidoo kale Abdidoon kadib inta markay tageen waxa dhacday in YouTube-kii guud ahaanba hawada markaasi laga bixiyay warar qaar ayaa sheegay in Xasan Toob haatan uu markaasi wado dacwad ka dhan ah dadka markaas uu tuunsan yahay uu markaa doonayo in maxkamad uu markaasi la koro oo ku aadan sida markaasi YouTube-kiisi loo dhacay dad ayuu markaa tuunsan yahay Xasan oo haatan markaasi la sheegayo dadkaasi wuxuu markaas ugu shaksan yahay in ay ka dambeeyeen in qadka laga saaro YouTube-kiisi durdur media durdur dabcan waa YouTube subscribe-kiisi aad u badnaa oo dabcan aan filaya 200 oo kun ka badan ba in markaas subscribe uu lahaa laakiin waa dhibaato weyn in qof intaas oo dhan YouTube-kii soo عجائبي وان يابي وروحها رمتها ميلا بدل مركي أنا كأركي بان حقيقة صدي إن أي رمتها إن channelكي أجاب صدي إن هو ذا اللي وقعنا يدردر ميديو I'm so sorry آدي آدا وقعنا وايو بحيتها مركي قف walaalkaa bloggiisto xanuun baa dareemaysaa meel uu maanta ka bariisaysanaayo hungurigiisa oo ka raadsanayo qutulyookiisa ka raadsanayo biilkiisa oo ka helayo maanta qofkii jeclaaday inuu qof walaalkiisa ah hoos u dhigo ama dib u celsho dadaalkii uu wada hawada oo uga cuno waa arrin aad iyo aad u adag arrin aad iyo aad u culus arrin aad iyo aad aan isdhihi karo waa mid dad ay u fikireen jeclaadeen in ay sameeyaan sida tan maanta la taagan yahay maxay tahay waxa waaye waxay tahay maanta tan ay sameeyeen qofkan saan sameeyay dad badan bay ku sameey doontaa dad badan bay dabagal ku wadaa dad badan bay xasadnimo ku wadaa waxaan idinka waaninayaa adduunyada ilaahay waxa u xun qof inaad xasado ama qof aad ku maqnaato marka aad qof xasdayso ama qof aad ku maqantaa horumar ma gaaraysid koo niyadaas jeceshaa mahidaysid labo mar waliba meeshaada taagnaanaysa saddex marka dhaqaaqaysid mar walba meeshaada taagnaanaysa marka aad xasinimo ku jirto ama aad jeclaysato in aad qofkan xasado ama qofka aad liido waayo qofka marka aad liido ama qofka aad xasado ama aad dhabar jab badan qof walba aad ugu fikirto adigay kugu imaanaysaa
markii adi biri kugu imaado maxaa sameyn indhaha mirig siinaysa ma fiicno xaasinimo ma fiicno qofkan walaalkaa mar walba ha xasdin qofkan walaalkaa mar walba dib ha u dhigin qof waayo maanta waa kana dadaalkiisa fara badnaa intaas uu soo wada ku haminayo oo maanta gaaray qutulyoon fara badan uu kasoo galay maanta intaas cadad uu ku xisaabtamaya laga yaabaa lacag maanta intii haddaad hungurigu ii istaagtay xaasinimo usoo bareertay oo jeclaysatay inaad channelka jabsato walaa horta qofkaas waxaan dhihi lahaa ka tanaasul xaasinimadaas ha noqon qof mar walba qofka horumarka gaara daba socda ha noqon qof mar walba qofka horumarka gaala dhabar toogasho ama dhabarka ka toogto u sameeyo xaasinimo waa laga fiican yahay waxaan idinka waaninayaa Soomaali Nabi Maxamed hadaatihiin xaasinimada ka fogaada ha is xasdinina qofba qofka uu ka sareeyo ha ku farxo hana ku fikiro biri inuu markuu dadaalo taa gaari doono marka taa ku fikirto wax dhiba kuma gaarayaan wax caqabad kuma wajahayaan laakiin mar walba xaasin guuso asxaabteeda qaaliga iga raali noqda hada channelkii ku cusubtaa subscribe like comment share hadad ku caajista ka raali noqo gacmo furan ku soo dhawaada. Assalaamu calaykum.